الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشنا قيمة يقايا له هلكني ويونيفرسال تي في كسر دواذا برنامج خاص أنو كوريسني عياريهن كصوماليات مجان ظاهر waraysigaasi wuxuu ka dhacay magaalada Leicester ee ariga wadanka Ingiriiska saad u jeedaan background ama gadaasheena waxa ka socda ciyaartii finalka oo dhaxmareysay kooxaha Leicester Stars iyo Al Hijra oo ka timid wadanka ka dhacaysa wadanka Ingiriiska finalka Eurosam ee samarka 2008 marka waxaan rabaa sida la socotaan magan inuu ciyaarta kubadda tenniska inuu ciyaaro oo waqti badan uu ku soo jiro marka waxaan rabaa hadalka intaan ku sii dheeraanin inaan weydiiyo su'aalooyin ku saabsan habnololeedkiisa waqti wadan ka soo tagay iyo sidoo ku bilaabay tenniska magan ku soo dhawow Universal TV mahadsanid Cabdinaasir okay su'aasheeda ugu horeysa waxay noqonaysaa bal habnololeedkaaga taariikhdaadii Soomaaliya intee kaga dhalatay bal wax nooga sheeg iyadoo kooban runtii Cabdinaasir haddaan kaaga waramo nolosheeda sport haddaan kaaga soo bilaabay goortaan dhashay ama meesha ku dhashay waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho kuna soo koray kuna soo barbaaray sportskana waxaan bilaabay runtii anoo yar waxay dhalay waalidiin sportska aad u jecel aaba daahir iyo hooyo maanafacay runtiina wuxuu ku jiraa jirkeyga sportska waxaan ka baxay dugsi dhexe kaambax maara dugsi sarena Sheekh Xasan Farsane marka haddaan dhankii waxbarashada aan galo okay magan waxa jirta in aad u soo wareegtay dibadda u soo wareegtay taariikhdaada waan akhriyay aad baan u akhriyay markii waraysa timid wadanka Talyaaniga ka bacdina u soo wareegtay Holland waxa ma iga sheegi kartaa sida uu kugu soo gaaray dhaawaca ka dhigay disableka waqtigu uu dhacay say u dhaceen iyo sida ku timid wadamadan dibadda runtii dhaawacayga wuxuu soo gaaray 1992 Muqdisho waliba xilliga ayada ah waxaa socday dagaaladii sokeeye waxaan ka xasuustaa waxay ahayd maalin subaxnimo aniga iyo aabo ku dheelani dibadda daama ama jarkabooda si loo yaqaanba marka waxaa guriga ku soo dhacay marka aanan degneen hoobiye oo si lama filaan ah ugu soo dhacay gurigii marka aniga hoobiyahaas ayaana ku dhaawacmay sidaa darteed ayaana wheelchair u saarnay okay markuu dhaawacan ku gaaray nasiib xumada ah oo Soomaaliya waqtiyada dagaalada soo ka socdeen ka bacdi isbitaal baa lagu soo qaaday wadanka Talyaaniga mise waxa isla wadanka Alle iskaga tago oo qaxootis ka noqo ilaa nabad ee wadanka iman doonto runtii reasonka aan u soo safarnay waxay ahayd xag caafimaadkayga ku saabsan waxaana nimid bilihii ugu horeysay Kenya waxaana ku jiray hospital gaaraan hospital Nairobi kadibna waxaan nimid Italy oo halkaasna ku noolahay muddo 2 iyo 3 sanadood kadibna waxaan soo galay Holland wadanka Holland marka dadka inta badan waxay ku xasuustaan inay yiraahdaan xataa waxa tahay one of the most famous sportsmen ama ciyaaryahanka Soomaaliyeed ugu caansan oo hadda dibadda laga yaqaano marka see ku bilowday kubadda miiska sidee heerkan ay ka joogtay hadda ku gaartay magan marka hore mahadsanid Cabdinaasir sida sharafta leh aad iyo maantay runtiina waa run waxaan leeyahay taageero fara badan ummadda Soomaaliyeed dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed aad ayay ii xiiseysaa ma haddaana ayaga ayaa leh sportska sidaan hore kugu sheegay waxaan bilaabay yaraanteeda runtii kubadda miiska hase hobby ayaan u dheeli jirnay guriga ayaa waxa inoo yeelay kubadda miiska marka oo aan waliba cashada isaga heli jirnay walaalaheena waayo xilliyada dagaalka uu sokeeyo bilaawday xataa dadkii cunto ku wada filan nama soo gaari jirin marka heer waxaan gaarnay aan cuntada xataa ku shaqatano badan aan la tumi jirin run ahaantii saaxiibkayga khaaliga ah Akoko ayaa wuxuu u dheelayay xulka qaranka Soomaaliya aan ka heli jiray ciyaartiisa iyo habka u dheeli jiray marka asagaana badan raaci jiray oo aan daawan jiray habka u almeeteeyo marka sida ayaan ku bilaabay kubadda miiska okay marka bilowday runtii Soomaaliya kulli opportunity ama chance-keeda kubadda miiska lagu ciyaaro aad u isaga yaraa iyo dhibaatooyinka wadanka ka dhaceen iyo everything markii dambe u soo wareegtay runtii dadku ma ogeyn waxay islahaayeen kulli magan wuxuu ku bilaabay markuu yimid wadamadan
dibadda Soomaaliya ku bilowday marka wadankan Netherlands ama Holland qof soo yaqaano waxaad ka gaartay heer run ahaantii one of the best place ka noqotay wadamo badan kaga soo qayb gashay ciyaarahan oo Europe iyo meelaha kale ah marka siday u arkeen dadkii Hollandeeska ah qof oo dhalad aan ahayn oo baalka qof madow ah oo wadankooda u dhalanin oo runtii kubadda miiska wadankoodii orange u gashto oo soo ciyaaray runtii si aad iyo aad ayay ii tixgeliyaan ina arkaan wanaag haddaan ka hadlo wadanka Holland runtii dadaalka aan ka gaaray anigu mar walba waxa ugu jira dadaal ah maanta dalkeeni waa tii u burburay sumcad xumo mooye dadkii oo dhan lagu yaqaan maanta wadan dagaal wadan dhac iyo boob iyo waxa wax la mid ah marka aniga waxa ugu jira dadaal ah sidee ayaad ugu soo celin kartaa sharaftii wadankaaga hooyo marka runtii laba rules ayaa isaarnay sidee aan ugu soo celin karaa sharafta hooyo wadankeena iyo dadaal ah sidee aan ugu horseedi karaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed dibadaha ku kala nool maanta runtii ayagana jaanisyo fara badan ayay haystaan haddii dadaalaan okay